بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وأحلنا عبد القادر الشيخ جامع داديدuna ay 27 sano ku sugan magaalada Gaalkacyo. Waxaan halkan ku duubayaa tixgabaya oo ka hadlaysa muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo dhibaatada uu leeyahay jahliga. Waan ka qayb galayo tartan suugaaneedka ee qabanayso Akademiyada Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA. Inda weyd baasho ma furan boogi maansada ee inaan gabayo baabkiisa galo waan ka baaqsaday inkastoo suugaan banaday beeg ismaan orane xalay baa baraadley martii laygu soo biday anigoon hurdada buuxin buu baari ii yimid bartamaha aleelkii saqdan soo baraarugay wax la yeelay bilaash uga min bixitin weeyaane waa inaan dabkan balalka weyn dhab u baqtiisay birmad xoog labay ka rabaan noolaha badane waa inaad baqoosha ariga baalka marisay aniguna bayaan baa sida baaqi lay faray baahida waxaad uga baxdaan ku bandhigayaay iga beegta maanta murtidu baa wir leedahay adduunyada barwaaqo nimca lagu bulaalay barashada tacliinta iyo cilmiga lagu badbaadaay baqti weeye ruuxan lahayn bilicdi diineed bay hoof u saariyay shaxaad baahida iyo ceebta balaayada jahla beera iyo baaso iyo ciile burhaan ma lahan aadmiga midkan baranin taariikhi inkastoo balaaqiyo aftaan hadal ku boobsiyo ma ku beego buundada saxda booska ay tahay raga biyo reeb wax kuwa booqa sare gaaray banaatiqda waaweyn ku waaridaya baaruuda buddig bay aqoon uga dhigeen kana bilaabeen barashada xaqiiqadeeda bay soo bandhigayaan Soomaalida basaasooday ee baladu laynayso iyaga isku booriyay waxaan ee bahay badane iyaga kufriga booriyada la biilu raadsaday iyaga bahaysiga dulliga sii bidhaansaday waa ka dadkii baaba iyo barakac weeyaan birmageyda lama dhaafay iyo buuni iyo sheekhay bilistaaba waagi bariyaba lagu bereeyay afartaas binay hadaan beed kale u laabto ujeedada hadaan ku baraxo talana ku biirsho qof waliba wuxuu beerta buu bari macaashay baraaruga dadii badawga ah boogta wada qaata shariicadana aan barano waa lagu biskooday marka baa wixii baade maqan baytigood bixin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.